بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواada janalkeena gacmo furan ee qalbi saafi oo idin soo dhaweynaa Soomaali weyn, waan idin salaamayaa meel walba joogtaan. maalin wanaagsan. maanta waxaan ka hadlaynaa jaceylka nafta ayaan ka hadlaynaa. in naftaada aad jeclaatid maaha inaad tahay macnihii maaha inaad tahay qof anaani ah oo anaaniyada ay ku badan tahay. macnihii maaha naftaada haddii aadan adiga jeclaanin waxaa waaye qof jeclaanayo amba qof turaayo mala haddaadan adiga turin aadan daneenin. way qurux badan tahay markaad soo kacdid maraayid inaad tiraahd nafihii waa ku jeclahay. laakiin siyaabo badan oo waxaa jirta jaceylka nafta kor loogu qaado ayaa jirto. qofka aad jeceshahay tusaalaan ku siinayaa. qofka adiga aad jeceshahay waa ku jeclahay, aniga garabkaaga taaganahay, intaas oo kaliya ku filan tahay. qofka adiga aad jeceshahay intaas oo kaliya miyaad ku dhahdaa amba aad ku tiraahdaa oo maxay waan ku jeclahay, aniga kula jiro, anaa garabkaaga taagan, maasha allah qof fiicanaad tahay, qof qurux badanaad tahay. intaas oo kaliya miyaa inta uu kaaga baahan mas intaas oo kaliya ayaa ku tiraahdaa. naftaadan sidaas si lamid ah waa qofka aad jeceshahay. waxaad siisaa waqti, waxaad siisaa xanaaneyn, waxaad siisaa daryeel, waxaad la jeceshahay wax walba oo wanaagsan aad la jeceshahay. hadal kaliya maaha laakiin waxtar ayaad ku muujisaa soo maha. jaceylkaaga waxtar ayaad ku muujisaa, soo waqti ayaad siisaa oo dhoola cadeysaa. qofka aad jeceshahay wax walba oo maxay ahayd jaceylkaas alaylehe oo kor u qaadayo amba isleedahay wuu korinaya ayaa sameysaa. hadal wanaagsan meesha way ku jiraan, laakiin hadal wanaagsan oo kaliya kuma eka. marka naftaadana sidaas si lamid ah waay. nafteeda kaliya maxay iga baahan tahay inaan dhaho hadal wanaagsan oo alaylehe aan fariisto maya. naftaada hadal wanaagsan waxaa waaye dhiirigelin u tahay, waa loo baahan yahay, laakiin waa inaad ficil ku dartaa. ficilka aad ku daraysid maxaa waaye? ficilka aan ku daraayo waxaa waaye aniga maanta qof aan jeclahay markuu ii imaanayo guriga see u soo dhaweeyaa, aniga maxaa u sameeyaa, maxaan siiyaa. intaas inaad siisid waa naftaada oo maanta alaylehe aad tiraahid aad jaceylkaaga aad ku cabirtid. waa qurux badan tahay inaad tiraahid maasha allah nafteedii waa qurux badan tahay, maasha allah heblaayo waa ku jeclahay, maasha allah. markaad maraayid taagantahay inaad tiraahid waa gaaraysaa meelaha ay ka gaabisay, dhiirgelinay u tahay. laakiin oo dhinaci kaleenta daryeelka kaleentana aad ka gaabinaysid xoogaa ma qurux badna. qofka aad jeceshahay maanta markuu ku imaanayo gurigaaga waxaad ka dhigtaa guri nadiif ah, guri aad qurux badan ayaad ka dhigtaa. waxaad u sameysaa cuntada kuwa ugu wanaagsan, cuntada mid ugu quruxda badan ayaad ku casuuntaa qofka aad jeceshahay. waxaad jeceshahay wax walba inay ahaadaan wax aad qurux badan inay ahaadaan ayaad jeceshahay. marka naftaada oo aad leedahay aniga waa jeclahay, waay aadan ugu sameynin intaas, waay aadan u casuumin naftaada oodan dhihinin aniga waa ku jeclahay nafihey, maanta meel hebel ayaan ku geynayaa oon kaa casuumayaa, cuntada adiga aad jeceshahay ayaan ku sameynaya anoo ku cabirayo jaceylka adiga aan ku qabo oona ku xanaaneynayo. waay aadan naftaada aadan u sameynin maanta maxay ahayd waxaan rabaa inaan isqurxiyo gurigeyga anoo joogo. waay nafteeda daryeelkeeda ayaa ku jiro. maanta gurigeygaan joogayaa, waxaan u nadiifinayaa sida qof aan jeclahay inaan casuumayo. qofka aan casuumayna waa isla ayadii nafteeda ayaan casuumaya. maanta inta soo kaco anoo faraxsan aad soo kacdid, aad gurigaaga nadiifsatid, aad shidid uunsigii, aad carfisid cuntada ee jeceshaha alaylehe maanta aad u sameysid quraac ahaato, maalin walbana aad ka dhigtid maalintaas oo kaleenta. nafta waxay dareemeysaa daryeelkii hore ayay u soconaysaa, dhiirigelin ayay helaysaa, xanaaneyn oo waxaa siisay oo ruuxi hadalkii waay. laakiin xanaaneyntii oo jirka ayaad siisay soomaa. jirka wuxuu u baahan yahay xanaaneyn ayuu u baahan yahay sida ruuxda ay xanaaneynta ugu baahan tahay. mararka qaar waxaa waaye qofka aad jeceshahay naftaada ruux ahaana laga yaabo inaad tiraahdo haye hore u soco nafteedii waan ku jeclahay hore u soco, laakiin aad ilowdid jir ahaanta aad ilowdid maya. waa qofka aad jeceshahay ee banaanka ah sida aad u jeceshahay ood u casuumaysid naftaada u casuun. isku day marka usbuuc amba bil markaa sameysid arag maxaa iska bedelay naftaada. waxaad arkaysaa inaad tahay qof aad qurux badan inaad noqotay. waa qurux badan tahay mar walba, laakiin markaad qofkaas adiga aad tahay ee maraayad aad ka arkaysa aad siisid daryeel, aad siisid xanaaneyn,
quruxdii waxay noqonaysaa qurux laba jibaaran ayay noqonaysaa, banaanka ayayna kasoo muuqanaysaa. aniga maanta nafteedaan casuumayaa, galabta casariyaa u sameynayaa, shaaha ay jeceshahay amba kofeyga ay jeceshahay ayaa u sameynayaa, maxay doolshada ay jeceshahay u sameynayaa, wax alaala waxay aleelahay ay jeceshahay oo cunto ayaa siinayaa. waxaan ka dhaafayaa ee dhaliisha waa qofka adi aad jeceshahay ma dhaliishid ma, qofka aad jeceshahay ma jeclid inuu kaa maqlo hadal xun, ma jeclid inaad dhaliishid, inaad tiraahid ood farta aad ku fiiqdid. farta aad ku fiiqdid waayo farta ma u quureysid inaad ku fiiqdo qofka aad jeceshahay. naftaadana sidaas iyo si lamid ah ka jooji ee dhaliilaha ha dhaliilin, u naxariiso. maxay dheh nafteedii anigoo ku jeclahay maasha allah tabaarakallah, hadal ahaan iyo ficil ahaan. suuqa hadaad aadid maanta usoo gad waxa ay jeceshahay, way baahan tahay oo farxad siinayo usoo gad. cuntada ay jeceshahay sii, dhaliisha badan iyo garaacista badan ka daa, oo aad soo xasuusinaysid dembi ay sameysay markay yareed ee caruur ay ahayd naftaada. soo ilaahay subxaana watacaala qafuur raxiim waa soo ma wuu ku cafinaya haddaad u toobad keenta. haddii aad dembi aad gashay istakfirullah inaad tiraahdo si niyad aad ilaahay uga soo noqotid, laakiin naftaadii mararka qaar ilaahay uu ku cafi inaad naftaada adiga aadan cafinayn ood sii daba taagantahay ood garaacista aad kuwada ka jooji. naftaada cafi, baro inaad cafisid naftaada. jaceylka nafta waxa waaye naftaada soo jiida sida aad u soo jiidanaysid qofka aad jeceshahay. anaaniyad maahan jaceylka nafta. qofkii ku dhaho anaaniyad waaye jaceylka nafta, macnaha jaceylka nafta ayuunsan fahamsaneen. anaaniyad maaha inaad naftaada aad jeclaatid, inaad ka dhowrto waxyeelada, in maxay ahayd ayada ay u mudan tahay ama ay kaaga baahan tahay daryeel lamid ah midka aad siinaysid qofka adiga aad jeceshahay. waayo waxaad leedahay aniga nafteedu waan jeclahay. okay, haddii aad jeceshahay maxaa usii la-dahay daryeelka ee mudneed, maxaa usiin la-day xanaaneynta ee mudneed. waa jecelahay oo afka dadka caadiga xataa jeceylkooda waxawaaye maku hana qaado mana ku hormaro. qofka adiga ku jecel mar walba waxaad ugu baahan tahay ficil inuu kuu muujiyo oo aan af kaliya ahayn. mararka qaar hadala macaan waa loo baahan yahay, dhiirigelin waa loo baahan, laakiin ficilka ayaa wuxuu yahay waxyaabaha jaceylka kor usii qaadayo oo kusii soconayo ayuu yahay. marka haddii ay tahay inaad naftaada adiga aad jeceshahay, muuji ficilkii inaad jeceshahay cadeynayo cadee. garaacista badan kada aad nafta garaacaysid aadan cafin karin sida dadka kale aad u cafisay, ayadana way mudan tahay inaad cafisid. way mudan tahay maanta inaan casuumo nafteyda aan ka dhiga maalin ay leedahay. maalin walba maalin ay leedahay, maalin walba kasoo qaad maanta inay horta nolosha adduunka ay kugu dambeysa. noloshaada dhan quruxay noqonay, waana ku raaxaysanaysaa. mararka qaar waxaa arkaysaa dad ku dhuminaya ee noloshooda waxyaaba aan macno lahayn. heblaayo hebel muxuu iisoo wici waaye, heblaayo maxay iisoo wici ways, heblaayo saanay idhahda waxyaaba oo liito ayaga laakiin way la weyn tahay. marka ay weynaanayaan markaad aragtid weyneynaya inay la weyn tahay. soo waxaa ka maqan jaceylka naftaada. marka aad jeceshahay waxaasoo dhan ma u arkaysid, wax qiimo leh ma u arkaysid. waayo qofkan aniga haddii uu rabo inuu nolosheeda u carqaladeeyo ma u ogolaanayo. qofkaan isoo wicin ahlankii isoo wac wasahlan. qofkaan rabo aniga inaan waco haddaanu isoo wicin anaa u kacaayo, anaa wacaayo, anaa dhahay hebel miyaa, heblaayo miyaa, maxaa kugu dhacay, maxaa iisoo wici weyd. haddaan laakiin aan ogaado qofka inuu go-aan kaa qaatay, faraha laga qaadaa. soo maha naftaada laguma mashquuliya. marka naftaada haddii aad jeceshahay waxyaabaha ku dhibaayo ayaa laga dhowraa. jaceylka naftana ma ahan hadal oo kaliya, ficil waa sida qofka aad jeceshahay baad ugu baahan tahay ficil inuu la yimaado, aan hadal kaliya ahayn. ayadana waa inaad ficil ku dartid. hadalkii muhiim waaye. waxaa kamid ah dhiirigelintii, waxaa kamid ah dhool cadeyntii, waxaa kamid ah inaad tiraahad nafteydii waa ku jeclahay, nafteydii waad gaari kartaa. waxyaabaha alalehe ee isleedahay way ka gaabisay amba way ka gaabinaysaa amba ay ku guul dareysatay, beri ayay gaaraysaa insha allah biidni illaahi alkariim. marka ha isdhihin ma gaaraysid. waxyaabaha nafta ee hoos u dhig ayaa waxaa kamid ah liiditaanka jooji. qofka aad jeceshahay ma liidid, waa ammaantaa. qofka aad jeceshahay waxaad aaminsan tahay inuu yahay qofka adduunka uga sareeyo. ayadana saas isi lamid inaad ula dhaqantid oo aad u muujisid jaceylka aad u qabtid xaq ay kugu leedahayna waa naftaada. mahadsanid daawashadaada iyo waqtigaaga qaaliga aad siisay video waxay inta aan kulmi doono waxaa idinkaga tagaya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ciao.